waxaana wanaagsan asxaabteeda qaaliga waa mar kale barnaamijyadeena Excelka waxaan idin tusay haddii la dhahdo shaqaalahan iibka ay sameeyeen iyo lacagta dakhliga ay soo xireeyeen qaab degdeg ah aad ugu samayn karaysid graph ahaan aad ku muujinaysid iyo halkan idinku tusay caawa haddii la dhahdo marka sidaa u wada doorataan sidaas ayaad u wada dooranaysaan waxaad taabanaysaan F11 ayaad taabanaysaan sidaas baa wada dooranaysaan F11 ayaad taabanaysaan F11 ama F11 ayaad taabanaysaan kadib graafkan ayuu idiin soo dhigaya graafka markuu idiin soo dhigo magacaantu way yaryar yihiin waad iska weyneysanaysaan marka 20 baan ka dhiganaynaa 9 buu taagan yahay magacaanta 20 ayaan ka dhiganaynaa kadib daatihii weli uu ka maqan yahay halkaas graafun buu tusinayaa maahayna imika graafku siduu kala dhaadheer ayuu tusinaya laakiinse daatihii weli kumayna soo xirin si aan data ugu shubno graaf ahaanta mid ahaan baan dhexda tegaynaa kadib right click ayaan leenahay add data labels ayaan leenahay kadib wuxuu noogu soo darayaa daatihii mid walba intuu iibiyey xogtiisa ayuu noogu soo darayaa bay ka dhigan tahay waa kaas mid walba intaasuu iibiyey axmed yaa ugu badan bay ka dhigan tahay $8,900 ayuu iibiyey bishaas iibkaas ayay ka dhigan tahay markaas waxaan umalaynaya inaad fahamteen haddaad u baahanteen graafka kan axmed maadaama ugu sarreeyo kalarka waad ka bedelan karaysaan oo mid aad idin khaas ayaad ka dhigan karaysaan green baad ka dhigan karaysaan haddaan doontaan laakiinse waxay ku xidhan tahay kolba midkaad doorataan ay ku xidhan tahay imika axmed waxaan ka dhigi karaa axmed keliya yellow baan ka dhigi karaa ama horta isagaa kelig la odhanayaa kadib green ayaa laga dhigayaa keligii baa green ka dhigatay bay ka dhigantay kuwa kalena saasaad u bedeli karaysa waxaan u malaynaya inay fahamteen asxaabteeda qaaliga ah haddii wax su-aalaad ka qabtaan waad soo weydiin karaysaan aad iyo aad baad umahadsantihiin goob walba goor walba aad joogtaan khayr iyo wanaag